gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa mudanayaasha baarlamaanka maamulka Galmudug waxa uu ka dalbay in ay yimaadaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug si loo dhameystiro howlaha horyaala kadib gudoomiyaha markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Gudoomiyaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay isla markaana waxa ku helinayay safarkiisa uu ku yimid magaalada Dhuusamareeb. Gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka Galmudug Maxamed Ahmed Maalin iyadoona soo dhaweyntiisa ay ka qayb qaateen madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi xildhibaano wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxa ugu horeyn warbaahinta la hadlay soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle. waxaan ku sugannahay garoonkii weynaa ee aeroboortka ee caasimadda Dhuusamareeb waxaan ku soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran ee uu hogaaminayo ra'iisul baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug iyo ku-xigeenadiisa. aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno mudane gudoomiye iyo ku-xigeenkaada soo dhawaada caasimaddii ku soo dhawaada garoonkii ku soo dhawaada Galmudug oo gacmaha haysta ku soo dhawaada. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka Galmudug Maxamed Ahmed Maalin ayaa waxa uu sheegay in ay u yimaadeen dhameystirka heshiisyadii Galmudug iyo ahlu sunna ay horay u wada gaareen qaybaha ka dhiman. waxaan u nimid meeshan haddii Allahayno inaan muujino kana turjino rabitaanka iyo shucuurta ka muuqata reer Galmudug oo rabitaankooda ay tahay inay naga helaan haddii Allahayno waxay naga malaynayaan. waxaan u nimid haddii Allahayno inaan ka shaqeyno midnimada iyo wada jirka iyo horumarka Galmudug. waxaan u nimid inaan dhameystirno haddii Ilaahay idmo heshiiskii Galmudug ee fayskiisii hore halkan awal lagu soo gabagabeeyay fayskii labaad ee madaxweynuhu uu daah furay inaan hawshiisa haddii Allahayno si dardar leh aan u wadno. waxaan rajaynaynaa inaan si fiican oo wanaagsan oo transparent ah aan uga shaqayn doono cadaalad iyo horumar iyo wanaag ay ku jirto si aan ugu gudubno fayska saddexaad oo dhameystirka si degdeg ah haddii Ilaahay idmo. gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa waxa uu sheegay in uu mudanayaasha baarlamaanka Galmudug ka dalbanayo in ay yimaadaan magaalada Dhuusamareeb si loo sii dhameystiro loona ambaqaado qaybaha ka dhiman heshiisyadii hore loo gaaray iyo sidoo kale dardargelinta howlaha u yaala. in ay yimaadeen baarlamaankii dowlad goboleedka Galmudug si ay heshiiska iyo dardargelinta howlaha ka socda Galmudug ay maaragtay uga qayb qaataan oo ay hadhowti aanay dhihin maaragtay annaga waa ka maqnayn Galmudug dadkay ka dhaxaysaa qof kasta oo mas'uul ah iyo shacabka Soomaaliyeed ee reer Galmudug ayaa iskale qof kasta biyana sacabahaaga ayaa looga dhargaa qof kasta waxa la doonayaa meesha uu ka leeyahay inuu ka qabsado. sidaa darteed baarlamaanku waa inuu yimaado waa inay qaybahooda ka qaataan waa inay inta dhimo wax ka dhameystiraan waajibaadkoodii qaran ee dowlad goboleedka Galmudugna ee loo xil saartay ee loo dhaariyay shacabkan reer Galmudug loogu dhaariyay inay waajibaadkooda ay gutaan ayaan ugu baaqaynaa waana sugaynaa insha Allah haddii alla yiraahdo wararka intiisa kale ta gadaal ayaan u dhiga doonaa. mudooyinkii la soo dhaafaba mas'uuliyiinta maamulka Galmudug ugu sarreysa ayaa waxay imaanayeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug iyadoona qaarkood ay kulamo la yeelanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.